Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Marka la eego sida dadka qaar ay moodaan in badaha ay u qoto dheer yihiin waa mid ka fog sida xaqiiqda ah. Haddii aad rabto inaad ogaato dhererka qoto dheerida saxda ah ee badda, waxaa nagu filan kaliya inaan soo qaadano goobta ugu dheer dunida oo ah buurta Everest, kadibna aan ku dhex quusino badda. Buurtan sida u dheer oo idil waxay ku dhex lumi doontaa gudaha badda, mana gaari doonto sagaxadda ugu hooseysa. Taa cagsigeed, waxaad u baahan doontaa inaad hoos u gasho tiradan 1600 mitir oo kale si aad u gaarto salka ugu hooseeya ee badda, halkaasi oo aad kula kulmi doonto xayawaano aynan horay u suureysan maskaxda bini'aadamka, magac ahaanna loogu yeero wuxuushta badda. daqiiqadaha soo aadan, adiga iyo anigaba waxaan safar sahmin ah ku tegaynaa gunta ugu hooseysa ee badda, inagoo baaritaano ku sameyn doona intee ayay la eg tahay qoto dheerida badda, xayawaano sidee ah ayaase ku nool goobta ugu qotada dheer ee badda. Inta aan muuqaalkan u gudagalin, haddii aad horay uga mid ahayd bahda macluumaad, isu soo noqod wanaagsan. Haddii aad nagu cusub tahay, kusoo dhawow bahda macluumaad. Magacaygu waa Maxamed Xuseen. Aan bilaabano xalqadeena maanta. Marka meeraha dhulka aad ka soo eegto hawada sare, sida kaaga muuqata muuqaalkan oo kale, waxa ugu horeeya indhahaga ku dhici doona marka laga reebo quruxda uu meerahan leeyahay waa in midabka buluugga ah uu ku badan yahay. Halka 4 meelood 3 meel ka mid ah dhulka uu ka kooban yahay biyo ama bado. Waana sababka ay badahan ugu muuqdaan caalam aad u weyn. Inkastoo bini'aadamka uu horumar ballaaran ka gaaray xagga cilmiga iyo agabyada, haddana sahminta iyo daahfurada lagu sameeyay gunta hoose ee badda waa 5% oo keliya. Waxaana macluumaadyo badan laga soo saaray meerayaashan ugu hareeraysan in ka badan macluumaadyada aan ka heysano gunta hoose ee badda. Haddii aynu dhanka kale ka eegno, tirada shakhsiyaadka ee tagay dayaxa ayaa ka badan tirada shakhsiyaadka ku quusay gunta hoose ee badda. Sababaha ugu weyn ee arrinkan ay ku dhacdayna waa cadaadiska zaa'idka ah ee ka jira gunta hoose ee badda. Mar waliba oo aad hoos u sii quusto, waxaa badanaya biyaha ka soo cadaadinaya xagga sare. Haddii aad tagto meesha ugu gunta hooseysa ee ku taal godka dheer ee Mariana, cadaadiska aad halkaasi kula kulmi doonto wuxuu kunjibaar ka sareen doonaa cadaadiska jawiga dhulka, waxayna la dhigan tahay in 475 diyaaradood oo nooca Boeing 747 ay ka cadaadinayaan dhammaan jihooyinka kale. Cadaadis intaa la egna wuxuu burburinayaa dhammaan lafaha jirkaaga. Dabcan, qoto dheerida badda meelba meel waa ay ku kala duwan yihiin. Bada qaar ayaanan sidaa u qoto dheereen, meelo qaarna waa god aad u dheer. balse waxaan dhihi karnaa celceliska qoto dheerida badaha waa wax u dhow 4 kiiloomitir. Si aan wax badan uga ogaano qoto dheerida badaha, bal aan marka hore isla eegno qeybaha loo qeybiyo. Waxaana u kala qaadaynaa 3 qeybood. Qeybta koowaad oo ah badda iftiinka leh waxayna gaartaa ilaa iyo 200 mitir. Iftiinka qoraxda ayaa si toos ah halkan u soo gaara, waana meesha ay ku nool yihiin xayawaanada badda kuwada ugu badan. Qeybta labaad oo ah badda xoogaha iftiinta ama bathypelagic, dherer ahaanna gaarta ilaa iyo 1000 mitir. Iftiinka qoraxda si fiican uma soo gaaro halkan, wixii 500 mitir ka hooseeyana ma jiro wax oksijiin ah oo aad neefsato. Wixii ka hooseeya 2000 mitir waxa ku bilowday badda mugdiga ah, halkaasi wax iftiin ah kama jiro. Sidoo kale kama baxaan geedo. Xayawaanada halkaasi ku noolna waxay quutaan waxyaabaha xagga sare ka soo dhaca. Waxaana jiro isku dayo badan oo ay sameeyeen shakhsiyaad si ay ugu quusaan gunta ugu hooseysa ee badda. Waxaana ka mid ah shakhsi lagu magacaabo Herbert Nitsch. Ninkan wuxuu gaaray gunta ugu hooseysa ee uu qof bini'aadama tagay asagoon wadan wax agaba lagu neefsado. Yacni hal neef oo uu qaatay ayuu wuxuu ku quusay masaafo dhan 253 mitir. Waxaa kaloo ku xiga ninka reer Masar ee lagu magacaabo Ahmed Jaber. Ahmed wuxuu haystaa rikoorka ah in uu noqday qofka ku quusay gunta ugu hooseysa ee uu qof bini'aadama tagay, wuxuuna quusay masaafo dhan 332 mitir. Dabcan wuxuu watay agabka lagu neefsado. waxayna ku qaadatay masaafadaasi in uu tago 15 daqiiqo oo kaliya. Masaafadan waxa ka hooseeya waxa adag in uu qof bini'aadam ah tago isagoon wadan agabka ka difaaca cadaadiska zaa'idka ah ee guntaasi hoose ka jira. waxaana arrinkaasi ka jawaab celiyay sanadii 2012 James Cameron oo ah directorka filimyada caanka ah ee Titanic iyo Avatar, isagoo ku bixiyay lacag dhan $10 milyan si loogu sameeyo gujis ka difaacaya cadaadiska zaa'idka ah. Gujiskaasi waxaa lagu magacaabay Deep Sea Challenger 1, dherer ahaanna wuxuu jiraa 7 mitir. 70% gujiskan wuxuu ka samaysan yahay maado gaar ah oo howlgalkan loogu talagalay, taasoo ah isofloid. Sidoo kale waxaa lagu sameeyay kaamirooyin casri ah iyo weliba leerar aad u awood badan. James Cameron asaga ayaa ahaa qofka gujiskan kaxeynayay, isagoo gudaha u galay goob yar oo ka samaysan bir dhumuceedu dhan yahay 7 sentimitir,
halkaasi oo ay ku jiraan qalabka guud ee laga maamulayo gujiskan haba ugu muhiimsanaatay in ay ka difaacayso cadaadiska ka jira halkaasi. waxaana u suurta gashay in uu tago masaafo dhan 10,898 mitir, waxayna ku qaadatay 2 saac iyo bar si halkaasi uu u tago. wuxuuna halkaasi ku sugnaa 3 saacadood oo kale si uu u baaro nolosha ka jirta salka hoose. James Cameron wuxuu markii dambe gujiskii u hadiyay macadka baaritaanka ee Waldis Hall, sidaana wuxuu ku noqday qofkii saddexaad ee salkaasi hoose tagay kadib hindisaaga u dhashay Switzerland ee Jacques Piccard iyo waliba Don Walsh oo u dhashay dalka Mareykanka, kuwa oo ka qayb galay sahmintii Triceid ee dhacday 1960kii. sahmintaasi oo qaadatay 5 saacadood si ay u gaaraan salka hoose, waxayna halkaasi ku sugnaayeen kaliya 20 daqiiqo maadaama ay cadaadis zaa'id ah la kulmeen, iyagoo ka baqay in gujiska ay siteen uu soo dilaaco. sidoo kale sanadii 2019 sahmiyaha reer America ee Victor Vescovo ayaa noqday qofka afraad ee gunta hoose badda tagay, wuxuuna quusay tiro dhan 10,972 mitir, waa wax u dhow 11 kilomitir. halkaasina wuxuu ku sugnaa 4 saacadood, sidaana wuxuu ku noqday qofka ugu horeeyay ee taga meesha ugu hooseysa ee badda, isagoo James Cameron kaga qaaday rikoodhkaasi dhowr mitir. wixii ka soo dambeeyay 2012 waxaa la bilaabay in la isticmaalo wadooyin kale oo lagu sahminayo nolosha ka jirta salka hoose ee badda, sida in la diro gujis aan qofna saarneyn oo lagu xukumayo banaanka. waxaana ugu horumarsanaa gujiskii laga diray macadka baaritaanada ee Monterey Bay, iyagoo halka muuqaalo ka soo qaaday xayawaano aynan weligeen hore u arag oo salkaasi hoos ku nool. hadeer waxaan gaarnay qaybta ugu xiisaha badan ee safarkeena, bal aan mid ku horkeeno xayawaanada ugu yaabka badan ee halkaasi ku nool. xayawaanada halkaasi ku nool waxaa ka mid ah anglerfish. xayawaankan wuxuu madaxa ku leeyahay xubin yara dheer, haddana qaybta kore ku sidata iftiin yar. maadaama uu mugdigaasi ku nool yahay, xayawaanada kale markay arkaan iftiinkaasi way u soo cararaan, kadib sidaa ayuu ku ugaaranayaa. anglerfish ma aha nooca kaliya oo ay xayawaanadan leeyihiin, balse waxaa jira 18 kalluun oo muuqaal ahaan kala duwan balse sifooyinka isku eg. tusaale ahaan Lasiognathus, Horned Latonfish, Thaumaturchis bengami, Phophostorius wadley iyo kuwo badan oo la mid ah. xayawaanadan ma ahan kuwa dabaal ku yimaada qaybta sare ee badda, balse halkaasi ayay ka helaan cunadooda oo Alle subxaanahu wa tacaala ayaaba ku arsaaqa. sidoo kale waxaa ka mid ah kalluunka lagu magacaabo Macrobina microstoma, waana nooca kaliya ee ka tirsan qoyska kalluunyada Macrobina. waxayna ku soocan yihiin qayb yar oo madaxooda ka mid ah ayaa ah qayb muuqata ama transparent ah, waxaana ka buuxa waxyaabo dareere ah halkaasi oo ay indhahooda ku yaalaan, taa oo u suuragelinaysa in dhan waliba ay si fudud ku eegaan. dhirarkoodu wuxuu dhan yahay 20 sentimitir. kalluunkan ma dabaasho inta badan, laakiin garbihiisa waaweyn ayaa ku saacidaya in hal goob uu ku sugnaado. Reiterolis chimera. kalluunyadan waxaa inta badan laga helaa badweynta Pacifiga iyo sidoo kale meelo u dhow New Zealand, koonfurta Australia iyo waliba koonfur Afrika. waana xayawaano ku nool gunta hoos ee badaha, sida la sheegayna tiro aad u yar ayaa ka haray, waxaana soo dhow in ay dabar go'aan. waxaana markii ugu horeysay muuqaal laga soo duubay sanadii 2016. Fangtooth fish. inkastoo si loo fahmo sifada kalluunkan ay leeyihiin loogu magacaabay magacan ah kalluunka leh miciyaha dhaadheer, balse taa micnaheedu ma ahan in aan loo dhawaan karin. kalluunyadan waa kuwo aad u yaryar, wax dhibaa zaa'id uma geystaan bini'aadamka. midka ugu weyn ee leh mici aad u dheer dhererkeedu wuxuu gaarayaa 16 sentimitir. kuwa kale ee dhexdhexaadka ahna waxay gaarayaan dhererkooda 6 sentimitir ilaa 8 sentimitir oo kale. waxaa laga yaabaa inaad la yaaban tahay xayawaanadan. inta aynan ka bixin safarkan aadka u xiisaha badan, bal aan ku raacsiiyo kuwa ka sii yaab badan. Viperfish. kalluunkan wuxuu ku kala duwan yahay midabka. kuwa ayaa ah cagaar, kuwa qaar midabka qalinka ayay leeyihiin, kuwana waa madow. waxayna miciyahooda dhaadheer u adeegsadaan si ay wax ugu ugaartaan, waana sababka ay u leeyihiin muuqaal laga cabsado. sidoo kale ma awoodaan in afkooda ay daboolaan maadaama miciyahooda ay zaa'id u dheer yihiin. si la mid ah kalluumada kale ee ku nool salka hoose badda, waxay awoodaan inay muddo dheer ku joogaan cunno yar, waxayna noolaan karaan 30 ilaa 40 sano. Malacostus niger. maadaama gunta badda aan laga dhex arkayn midabka gaduudka ah oo xayawaanada halkaasi ku nool aynan arki karin midabkaasi, sidoo kale kalluunyada leh midabka gaduudkana ay qarsoomayaan. kalluunka Malacostus wuxuu ka faa'iideystaa arrinkan, asagoo qaybta hoose ishiisa ka sii daaya midabka gaduudka ah. kadib markii uu aftiinkaasi sii deysto, wuxuu awood u yeeshanayaa in uu arko wax waliba oo gaduud ah, sida ayuuna ku ugaaranayaa kalluunyada kale oo leh midabka gaduudka.
aad baan idinkaga mahadcelinayaa dhammaantiin taageerada aad inala garab taagan tihiin. Fadlan haddii uu muuqaalka ku cajib geliyay la gare oo la sii wadaag asxaabtaada qaaliga ah. Waa inoo muuqaalka kan xiga waxaan kaga tegayaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Sidaa iyo amaano Allah.